fadlan ha ilaawin inaad subscribe saarto aad gambaleelka aad furato si mar walba muuqaaladii aan dhigno oo aad oola socoto. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Soomaali weyn meel walba joogtaan waxaa idin salaanta islaamka oo ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan idin leeyahay meel walba aad joogtaan jimco wanaagsan. alxamdulilah rabbil carshi alcadiim alladii lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad. walaalayaal waxaan rabaa aan idin sheegayaa inay ramadaan may soo dhowdahay ee laba maalmood oo keliya ay noogu dhiman tahay. maanta bisha ay tahay 8 marka maxaan rabaa marka mataqaaniin waxaan rabaa inaan idin sheego. waxaan rabaa meel walba aad joogtaan Soomaali weyney inaad iscafisaan, cuqdada iska dhaaftaan, meel walba aad joogtaan inaad isxariirisaan, inaad isbooqataan, inaad iswareysataan xaaladiina qofba qofka kaleeta xaalkiisu inuu wareysto. waayo bish ramadaan ayaa noo soo dhow, laba maalmood oo keliya noogu dhiman. labadaas maalin inaan gaareen in kale allahu aclam, ilaaha kaste. marka eedoo saas ay tahay laakiin waxaan rajaynaynaa inaan samo aan ku gaarno. waayo ilaahigiina soo gaarsiiyey bish ramadaan intaanoo misdehen bish ramadaan ilaahigiina soo gaarsiiyey. anaga misdehen bish ramadaan aan gaaraysin waa may. alxamdulilah ilaaha maadskale ilaahigiina soo gaarsiiyey bish ramadaan. labadan beer dhimane rabbi aan ka baryaynaa inuu si samo ah inuu nagu gaarsiiyo maadaama bisha ramadaan ay soo dhowdaan. marka qof walba muslim ah walaalkiisu inuu cafiyaa, walaalkiisu waa inuu soo dhaweeyaa, uu xariiriyaa, uu saacidaa, qalbigiisu waa inuu u furaa ilaahay dartiis. maadaama bisha ay soo dhowdahay qofka muslimka waxaa loo baahan yahay inuu walaalkiisa soo dhaweeyo, walaalkiisa qalbigiisu oo u furo, walaalkiisu inuu caawiyo, walaalkiisa hadduu wax u haysanin oo garab oo siiyo. bisha ramadaan inuu samata bixiyo oo u gargaaro. haddaan isku gargaarno aan isku naxariisano gargaarno oo aan isku naxariisan ilaahayna waa noo naxariisanaa. marka ummadda Soomaaliyeed meel walba aad joogtaan waxaan idin leeyahay jimco wanaagsan. mar kaleete waxaan idin leeyahay bish ramadaan ayaa soo dhow. waxaan rabnaa inaan dhahno marxab yaa ramadaan, inaan si samee aan kusoo dhaweyno, walaalaheena aan garab aan siino, aan saacidno wixii ilaahay noo dhiibo, wixii naga badan nafsadeena walaalaheena aan ku saacidno, aan garab aan isiino. waayo adduunya walaal lagu yahay, adduunya wax laiskugu qabtaa. markaas aakhiro qof walba shanigiisa la qunto, qof walba shanigiisa haasto. laakiin inta adduunya aan joogno aan isku naxariisano, aan iskaalmeysano, aan garab isiino. waayo haddaan isku naxariisano aan isku imaan ilaahayna noo naxariisanaa, samadoona noo naxariisanaa. makastee marka la jeclaaw nafsadaadana waxay jeceshahay nafsada walaalkaaga la jeclaaw. maanta wixii laga bilaabo walaalkaaga cafi, saamax, ilaahay dartiis ku cafi, ilaahay dartiis ku saamax. ilaahay si aniga noogu naxariiso bisha ramadaan fadligeeda aan ka faa'iidaysano, darajadeeda dheeraadka ah. bisha ramadaan dhexdeeda waxyaabo badanoo ilaahay ku sheegay si ilaahay noogu naxariisto aan ka faa'iidaysano fadligeed. rabbi gacmaha aan u taagano, aan isaacidno, aan iscafino. meel walba walaalkeena oo jooga aan saacidno, wixii nafsadeena ka badan walaalkeena aan ku saacidno. xasnimo aan dhaafno, qalbiyaasheena ha isku furno, ilaahay ha noo naxariisto. wixii nafsadaada ay jeceshahan la jeclaaw nafsada walaalkaaga. nabi calayhi salaatu wasalaam siduu dhahay laa yuuminu axadukum xataa yuxibu liakhiih maa yuxibu linafsih. nafsadaada waxay jeceshahay ma rumeynin ilaahay. qofaa nafsadiisii oo wuxuu jecel yahay oo la jeclaali nafsada walaalkiisa, qofkaas ilaahay ma rumeynin. waayo nafsadaada waxay jeceshahay la jeclaaw nafsada walaalkaaga. waayo nabi calayhi salaatu wasalaam qowlkiisu waaye laa yuumin wax walba nafsadaada ayaa la jeceshahay la jeclaaw nafsada walaalkaaga. nabi calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku hadlay waa qowl saxiix ah, waa xadiis saxiix ah. makaste marka wixii nafsadaada ay jeceshahay la jeclaaw nafsada walaalkaagana si ilaahay bish ramadaan ugu samata bixiyo fadligeeda, ilaahay inuuna siiyo darajadeeda. kuwii bish ramadaan dhexdeed loogu dambi dhaafan inuu ilaahay naga dhigo rabbi aan ka baryeynaa. qalbiyaasheena isku furno meel walba aad joogtaan. Soomaali weyn waxaan u leeyahay hadalkayga qof kale fahmaa ma jiro, Soomaaliya fahmayso. marka walaalaan nahne, ummadda islaamka ka mid nahne dhammaanteena. marka islaamnimo isku jecelnaa, inama almu'minuuna ikhwa fa aslixuu bayna akhwaykum. marka ilaahay aayadiisa saas waaye. marka walaalaanan dad muslimiin aanan ha isku naxariisano, ha isku gargaarno, bisha ramadaan garab ha isku siino. marka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay bish ramadaan noo dambi dhaafo. mar walba inuu ilaahay noo dambi dhaafo. bish ramadaan dhexdeedana dadka loogu naxariistay, dadka dembiyaashooda loo dhaafi, dadka naarta laga xoreeyay inuu ilaahay naga dhigo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan idin leeyahay meel walba joogtaan isku naxariista, iscafiya, ilaahay dartiisa isku cafiya, ilaahay si idinku naxariisto.
iscafino iscafino hana isaacidno walaalkaaga muslimka hana caawi. Asalaamu calaykum.